daawadayaal waqti xaadirkan waxaa khadka taleefanka si toos ugu jira mudane Shacayb Daahir Yuusuf oo ka mid ah qurba joogta ku nool dalka Ingiriiska. Mudane Shacayb soo dhawow marka hore wad la socotaa in maxkamadda sare ee Somaliland ay go'aan ka soo saartay arrintii sharciga ahayd ee muran siyaasadeedka badan dhalisay ee furista ururada sideed u aragtaa go'aanka maxkamadda? bismillaahi raxmaani raxiim. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan mujtamaca reer Somaliland, qurba joogta iyo dalka wadankii hooyo joogaba iyo meel kastoo ay daafaha adduunka ay kaga sugan yihiin. halkan waxaan aada ugu mahad celinayaa kuna salaamayaa telefishinka Horyaal TV. aada iyo aadna waan idiga mahad celinayaa xusitaanka aad soo xusteen iyo wareysi aada jeclaysateen inaad iga qaadaan oo runtii maaragtay aada iyo aada u qiimo weyne farxad gelinaysaa, weyne idhiiri gelinaysaa, waanad ku mahadsantihiin. haddii aan usoo laabto wareysigiina ama haddii aan maaragtay yaro guda galo arrimaha siyaasadda ee furista ururada, horta sharcigeena ama dastuurkeena wuxuu dhigayaa 10 sanaba in la furo ururada. taasina maaragtay wax aynu wada sugayna ayay horta ahayd. kulley maadaama uu waqtigeygii soo dhow yahay, inkastoo uu buuq badan ka dhashay, haddana anigu waan soo dhaweynayaa furista ururada, iyadoo oo weliba maxkamadeena dastuurigii ay xukuntay oo ay inoo furtay ururadii. kulley wixii intaa ka dambeeyana waxaa la wareegi doonaa hay-adaha ku shaqada leh ayaynu uga dambeyneynaa. aniga oo kolley maaragtay sii qaadaadhigayn oo runtii maaragtay dee laga wada dheragsan yahay sida ay wax u dhacayaan, laakiin haddana waxaa farxad geliyey in ay saddexda xusbi qaran ay isku waafaqeen go-aankii maxkamadda ay soo saartay. taasina guul weyn ayay inoo dhalisay runtii, oo ididiilo fara badan ayayna gelisay. maxkamaddana aada iyo aada ayaan uga mahad celinayaa, iyada oo maaragtay dhinac walbana ay ka farxiyeen oo cid walbana ay habi ku noqotay, cid walbana ay soo dhaweysay go-aankaasi. taasina waxa weeyaan waxaan odhan karaa waa bisaylka iyo cadaaladda, sida aynu maalinba maalinta ka dambeysa ugu sii dhiirinayno oo ay maaragtay ay wax noo sii bildhaamayaan, sida ay wax inoogu qabsoomayaan, sida ay wax inoogu hagaagayaan, iyo sida ay khilaafku uu u yaraanayo. taasina waa mid aada iyo aada u muhiim ah. sideedaba waxaynu dee loon jenib ayaynu ka nimid runtii, ama dariiq fog baynu aynu soo qaadnay oo isbebedel fara badan. haddii markaa aynu dee dib ugu laabano, kolley maaragtay lagama gayoonayo oo halkan kuma soo wada bandhigi karno, laakiin sida tayada waxaan kusoo xoorinayaa ama aan kusoo gabagabeynayaa waa war farxad leh, waana soo dhaweynayaa. aada iyo aadna maaragtay waan u taageersanaya in maskaxaha qarsoon lasoo saaro. Madaxweynaha Somaliland waxa uu safar ku tagay dalka Itoobiya. socdaalka madaxweynaha sideed u arag? taariikh dheer baa ayaa kasoo dhaxaysay oo runtii dee kuma noqon karno. taasina waqti gooni ayay maaragtay ayay u baahan tahay. laakiin socdaalkiisa haddii aan waxoogaa yar isku dayo inaan ka faalloodo, ama aan maaragtay inkastoo aanan runtii xoogayaal u ahayn oo aanan wareysyo fara badan iyo baaritaan fara badan aanan gelin, laakiin haddana maaragtay aragti ahaan sida ay igu muuqato, horta waxayd arrin runtii si loo soo dhaweeyey iyo si loo qaabilay runtii ay mustawa aada u heer sareeya ahayd, oo tii madaxweynaha ay ahayd madaxweyne loo sameeyo. taasina maaragtay waa mid runtii haddaan anagu nahay qurba joog aada noo farxad gelisay, oo dee magaceeni uu kor usoo kacayo, oo yacni na tusaysaa bariga Africa siyaasadaha ka socda in ay Somaliland door weyn ka ciyaareyso, because China sida maaragtay inoo muuqda
u baahan in maaragtay say tahay looga faa'iideysto ee ah si degdega aan degdeg ku jirin oo miyir qab ah oo laga fiirsanayo yacni maaragtay loo wajahayo. Marka waxaa iga muuqatay in ay tahay mid ka fiirsasho leh sida ay maaragtay ay u socdaan ama uu tegay safarkiisu. Inkastoo si aanu filaynay oo 2 cisho iyo 3 cisho inuu qaato ay ahayd saan filaynay, laakiin haddana si degdega ay maaragtay uu usoo noqday madaxweyne muuse biixi. Taasina dee kulley sifaalaheega waxa weeyaan maaragtay dee mid aan muuqnayn yacni ujeedada rasmiga ah ee maaragtay oo kulley dee arrimo siyaasiya oo xasaasiya ayaa kulley laga wada hadlay. In la isku afgaran waayey, in la isku afgartay iyo in meel wax la dhigtay iyo in wax sii soconayo kulley waa guddi waxna loo saaray. Marka dee kulley taasi dhaceega ama maaragtay gunaanadkeyga waynu ka warhayn doonaa, waynu sugi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo. Laakiinse hadda safarkiisu wuxuu ahaa safar kusoo beegmay isaga oo maaragtay dee Ethiopia ciidamadeeda maaragtay badda la maaragtay la hadal hayo oo dee niman journalistiyaal ay warbixin ka soo qoreen. Marka dee kulley dhegtiina wada taagnayd. ugu dambeyntii doodii habeenkii dhoweyd ee la keenay baarlamaanka ingiriiska ee qadiyadda somalilan lagaga doodayay sidaad u aragtaa doodaas? Dadka ku dhaqan ee qurba joogta reer somaliland ee ku dhaqan UK oo runtii muddo fara badanna kusoo jiray ballaarinta magaca somaliland, kor u qaadida maaragtay magaca somaliland, meelgaarsiinta ictiraafka somaliland oo runtii maaragtay 2013 halkan aan ka baxay oo aan tegay Faransiiska, Belgiumka iyo Holland aan intaa isku marnay oo runtii aan xitaa qolada maaragtay European Unionka berigaa uu Ingiriisku ka tirsanaa aan maaragtay aan aada ula kulanay runtii. Marka horta anigu kaasaan ahay. Imikana waxaan ahay maaragtay qof activist ah oo runtii ku hawlan una heelan inuu qeyb lixaad ka qaato horukaca ama fahansiinta jaaliyadaha kale ee nagu nool aan ku dhex noolnahay somaliland oo runtii nagu qaadata sharaxaad fara badan oo nagu qaadata qeexitaan fara badan oo nagu qaadata maaragtay fahansiin fara badan runtii. oo yacni waxyaabaha qaar aad marka qofku yidhahdo ma garanayo somaliland ay qasab kugu tahay inaad sharaxaad iyo faahfaahin dheeraad ka bixiso. Intaasna waa intaa yare hordhaca. Laakiin su-aasheeda haddaan usoo daadego baarlamaanka ingiriiska waxaa aada iyo aada loogu diirsaday arrintii maaragtay Keith Wilson uu waday, taasi oo ahayd runtii inay caalamka oo dhan soo jiidatay oo maaragtay aada loo soo dhaweeyey oo warbaahinta caalamiga wada qaateen, baarlamaanka caalamku ay wada kala qaateen oo runtiisi arrintaasi ay ahayd arrin aada iyo aada u cajiib ahayd oo runtii loo baahnaa muddana aan sugaynay muddana aan kasoo shaqaynaynay runtii. teeda kale laba filan waxaa ahaa iyaga oo 3 xusbi ka tirsan waddankan iyo ururada kale ee maaragtay ama xusbiyada kale ee iyaguna yaryar ay xitaa ku jireen oo ay runtii aada iyo aada ayaguna usoo dhaweeyeen ugana qeyb qaateen lana socdeen oo arrin aada u cajiiba ahayd runtii. Annagu halkan markaanu joogno yacni waxaanu dardar gelinaa ama aanu maaragtay dabada ka wadnaa nimanka maaragtay counsilorska noo ah ama maayarada maaragtay xaafadahayaga ee aanu deganahay ayaanu ku bashkaraynaa, ka dhaadhicinaa, la kulannaa, wax u sheegnaa. Marka annaga halkan waxaa noogu taala jaalid la yidhaahdo West London Somaliland Community
taasi oo maaragtay iyaduna dardar xoog la gelisa had iyo jeer maaragtay kor u qaadida iyo baahinta maaragtay magaca somaliland. marka arrintaasna dee kulley waad ka dharagsan tihiin oo warbaahintii way ka dharagsan tahay ama dadku ka dharagsan yihiin life baa loo wada daawanaya arrinta habeenkaas socotay. laakiin haddana weli ma dhowa oo kulley ballanqaadyo kale oo dambe ayaa lagu kulmayaa oo weliba kasii culus oo kasii xasaasisan oo tirada fadhiday tiro kasii badan ay iman doonto insha allah saan rajeynayno. aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mudane Shucayb daahir yuusuf waqtigaaga qaaliga ee telefishinka siisay waa kaaga mahadcelinayna.